السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saaxiibayaal muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa taariikhda boqortooyadii Songohay. Koritaankii boqortooyadii Songohay waxa uu ka soo bilaabmay kalluumaysatada reer Soorko oo ahaa dad ku xeel dheeraa samaynta doonyaha yaryar ee loo yaqaanay huuriyada. Waxa ayna ku noolaayeen agagaarka webiga Niger, gaar ahaan meel koonfur bari ka xigtay magaalada Gawo. qarniga 14aad Songohay waxay ku hoos jirtay boqortooyadii Mali. qarniga 15aad Suni Ali oo hogaamiye military ahaa waxa uu dhisay ciidan ballaaran oo isugu jiray kuwa fardaha ku dagaalamaya kuwa goosaamo huuriya oo aad loo tababaray. sanadkii 1493 waxa taladii Mali la wareegay nin la oran jiray Generaal Maxamed Toure. waxa uu ahaa nin muslim ah oo ka soo jeeday dadka Soniinka. waxqabadkii Maxamed Toure waxa ka mid ahaa isagoo oo qaaday dagaalo jihaad oo diinta Islaamka ku faafinayay galbeedka Afrika. waxa uu qaaday darajada khaliifkii Suudaan oo loo yaqaanay dhulka koonfurta ka xiga lama deegaanka Saxaraha. dhisida maamul dawladeed oo ku salaysan shuura, wada tashiga dad ku xeel dheer cilmiga diinta iyo khubarada garsoorka, ballaarinta ganacsiga sida dahabka, midhaha, kolaha